السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا حبنتيني كبع مسكحذا ذا ونكسو قادن دونا إن شاء الله وحيابو آذن هرو أركين suuragalna ay tahay inaad hadda aragto markii kuugu horeysay ma og tahay in Google-ka laga raadiyo macluumaad kala duwan iyo waxyaabo kala jaad ah balaayiin jeer maalintii haddaba dadka wax ka baara Google-ka ayaa waxa ay ka raadiyaan mowduucyo kala duwan iyo kuwa kala jaad ah oo aan islahayn kuwa ayaa waxa ay ka raadiyaan noocyada cuntada ay jecel yihiin iyo qaabka loo sameeyo iyagoo ka baranaya kuwa kalena waxa ay ka raadiyaan ciyaaraha jirdhiska iyo wixii ku saabsan halka kuwa kale ay ka daawadaan filimada iyadoo ay jirto in ay jiraan mareegyo kale oo wax laga baaro oo aan ahayn Google oo kaliya Google-ku ay dadku inta badan u cuskadaan inay ka raadiyaan waxyaabo badan oo ay uga baahan yihiin markaasi inay xal u helaan sida dhibaato jirto oo markaasi la doonayay in xal loo helo shay macnihiisa la garan waayay oo la doonayay in tafsiirkiisa ama qeexitaankiisa la helo ama xitaa taariikhda shay gaar ah oo markaasi loo baahan yahay haddaba mowduuceena maanta ama barnaamijkeenan aan soo qaadanayno sidaasi waa uu ka duwan yahay oo waxaan ku daawan doonaa waxyaabo aad arkayso markii kuugu horeysay noloshaada macquulse ay tahay inaad qaarkood hore u aragtay laakiin dhammaantood ma aadan wada arag haddaba ila daawo barnaamijkeena aan gudaha u galno qodobka ugu horeeya aragtida duufaanooyinka barafka wata ee ka dhaca wadamada qaar intaad ku soo nooleed caalamkan ama aad soo jirtay waxaa laga yaabaa inaad hore u soo aragtay cawaasif iyo duufaano dhacaya kuwaasi oo wata baraf ama aad soo aragtay kuwa caadi ah oo aan wadanin baraf iyadoona arrintaasi ay sababayso jawiga cimilada oo isbedbedelaya mar waliba cimiladu hal meel ma taagna oo isbedbedelkeedu waa mid joogto ah haddaba waxaa jira dad sheegtay in ay arkeen waxa lagu magacaabo carabi ahaan xaafat alcawaasif almumtirah xaafada duufaanada roobaysan runtiina uma garanayo erey af Soomaali ah oo ku aadan ereyga xaafa balse ila daawo muuqaalkan uu qofkani duubay isagoo ahaa midadu nasiib badan arkayna ereygaas aan ku soo sheegnay xaafada qodobka xiga wax ka bedelida gawaarida tartanka meel aan lahayn jaadibiyad inta badan dadka ku xiran tartanada gawaarida dhexmara gawaarida tartanka ku jirta waxa la sameeyaa meel gaar ah oo dad u adeega joogan ayaa jirta laguna magacaabo nuqdada ama boostajada adeega fudud waxa halkaas looga bedelaa gaariga tartamaha taayirada sidoo kale wixii uu u baahan yahay ayaa la siiyaa iyadoona loo baahan yahay hawshaasi in lagu qabto qaab degdeg ah sababtoo ah haddii qofkan la daahiyo oo hawsha lagu dheereeyo waxaa laga yaabaa inuu kadib dhaco tartankii uu ku jiray haddii asxaab kale oo aad la tartamaysay ay kaa howl dheereeyaan ama ay taayirada uga bedelaan ilbiriqsiyo adiguna aad daqiiqad ku daahdo waxaad noqon doontaa mid habsaamaya oo tartankaasi ka hari doona sidaa daraaddeed kooxda Red Bull loo yaqaano ayaa waxa ay sameeyeen meel aan jaadibiyad lahayn ayay waxay ku bedeleen gaariga waxyaabihii looga baahnaa in la bedelo sida taayirada arrintaasina waxay uga dan lahaayeen in meel aan jaadibiyad lahayn ama soo jiidasho aan lahayn sida fadaaga ama dhanka hawada inay u baxaan oo kale ay arrintaasi tijaabo uga dhigayeen iyagoona arrintaasi ku guulaystay oo si degdeg ah hawshaasi ku qabtay qodobka saddexaad ee barnaamijkeena maanta wuxuu noqon doonaa barafka guri ku samayska ah maalmahan dambe waxaa baraha bulshada ku faafay muuqaalada qaar oo ay sameynayaan dad gaar ah kuwaasi oo soo saaraya codad qurxoon oo ay dadku ka heleen laakiin arrinta aan rabno inaan ka hadalno waxaasi oo dhan waa ay ka duwan tahay oo waa muuqaalkan uu qofkani ku sameynaya arrinta la yaabka leh tubada biyaha ka soo baxaya ayaa waxa ay isku bedelayaan baraf
arrintaanina waxayna dareensiinaysaa in qofka muuqaalkan duubay ee asal ahaan isagu iska leh uu degan yahay meel aad u qabow badan, midaasi oo sababaysa in biyaha tubada yar ka soo baxaya isla markiiba markay bannaanka u soo baxaan ay si toosa isugu beddelaan baraf yaryar. qodobka xiga waa shaygan wareegsan ee midabada kala duwan leh, inta badan la isku xojeeyo in la isku toosiyo waliba waqti kooban. laakiin muuqaalkan ila daawo, ninkan wuxuu sheegay iska dhaaf fadhi inuu ku xaliyee xitaa hawada isagoo duulaya ayuu leeyahay waan xallinayaa arrintan oo waan toosin karayaa waliba waqti kooban. shirkaddii qalabkan iska lahayd markii muuqaalkan daawatay arrintaana uu ka dhabeeyey waa ay abaalmarisay iyadoo guddoonsiisay shahaado sharaf. qodobkeena xiga wuxuu ku saabsan yahay qaansaroobaadka biyaha ka dhex muuqatay ee muujisay sawirka quruxda badan. wax badan oo cusub ayaa caalamka la ikhtiraacaa, waxyaabo badan oo halabuura ayaa la soo kordhiyaa, laakiin dabeecadda iyo Ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu dhulku u abuuray waxaa ku jira waxyaabo badan oo haddii lagu fikiro laga kororsan karo iimaan iyo caqli iyo garaad badan. bal ila fiiri muuqaalkan ay ka dhex muuqanayso qaansaroobaadkan biyaha ka dhex muuqanaysa. iftiinkeeda ayaa ku dhacay biyaha, kadibna waxaan halkaa ka dhex arkaynaa qaansaroobaadkii oo u ekaatay sida il qurux badan oo kale. muuqaalkan ayaana lagu duubay gobolka Alaska.